بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. باب السنن الفطرة. فطرة السنن كريه باب يهي. فطرة وكان صور شيخنا حلي معاني كلا جديد سامي علماء كشيغيان، لكن waxay isugu taqriiban isugu imaanaysaa waa arrimo wanaagooda Ilaahay tabaaraka wa tacaala ibn aadamka uu ku abuuray, qalbigiisana uu galiyay, sharaa'icduna ku soo degtay lana kala dhaxlay oo ambiyadii iyo rusushii iyo saalixiintii iyo kulli loo kala dambeeyay way macnaha. طيب sharaa'icduna dhammaan ay la timid kadibna arrin jibilli ah oo qariisada ibn aadamka wanaageeda Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu geliyay, arrimahaas fitrada la yiraahdo. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحوري 5 شن أي خصال شن الرماد من الفطرة بيكمت فلها ونكسن دينك إلهي تبارك وتعالى وناقود ابن آدم كوقلبه سجلي أي كمت. الاستحداد ويكهراء انتمها قمير كالحيرة. الاستحداد والختان ويكالباد قديدة قديتانك وقص الشارب شاربته لقابيه ونتف الإبط kilkisha oo timaheeda la tifo yaani la jaro wa taqliimu al-adfaari iyo cidiyaha la gooyo. rawaha wariya al-jamaa'atu shanti baa warisay, waxaan ilaha al-jamaa'a kooxdii baa warisay. طيب istixdaadka waxa la yiraahdaa sida riwaayada muslim baa ay ka cabirtay halqul aana la yiraahdaa, timaha ka soo baxa xubinka taranka korkiisa iyo hareerihiisa oo la xiiro ayaa la yiraahdaa istixdaadka. waxaana laga keenay kelimada iyada ah min alxadiidati baa laga keenay, yaani waa aaladii loo isticmaalayo, waa birta loo isticmaalo ayaa aslaan laga keenay, laakiin macnaha waxa laga wadaa timaha meelaha ka soo baxa in la xiiro ayaa laga wadaa macnaha. طيب xiritaankoodu marka fitradu ka mid yahay, sida loo badan yahay inay sunno yahay waa mustaxab yahay. waxa lagu xirayaa marka xiridu iyo jaridda iyo shayka gooyo sida nuuradda isticmaali jireen waagii hore, inta waa loo isticmaali karaa. haddana kareem iyo waxa loo isticmaalaa si loo isticmaalaba in la zuuliyo way muhiimadu macnaha adoo waxa doonto isticmaal. طيب talabaadna waxa weeye al-khitaan waa khitaanku waa guditaanka weeye. baab gooniyu ku keeni doona insha Allah taala. waxaana laga wadaa ragga marka la yiraahdo waa in buuriyada la gooyo, waa buuriyada waxa ka hooseeyana oo banaanka u soo baxo. ama dumarka waxa la yiraahdaa xubinka qadarka ugu sareeya baarinta diigo kale leh u eg in qadarka ugu yar laga jaro, jildadaasi in qadarka ugu yar la taabto laga jaro ayaa la yiraahdaa gudniinka dumarkana. waana u tagi doona insha Allah taala khitaanka iyo ahkaamtiisa baab gooni u sameyn doona. wa qassu sharibi wa sharubta gaabinteeda waa ayadana baab gooni u sameyn doona. wa natfu al-ibti kilkilada oo la tifo. natfiga waxa la yiraahdaa in aan lagu xiirin ama sakiin ama shay lagu xiirin gacanta intaad ku qabato gacanta ku jarto oo aad tifto ayaa la yiraahdaa macna. طيب waa sunnay culimada badankood qabaan, sida afdalka ana wuxuu leeyahay imaam Nawawi alayhi rahmatullah waa natfigaas in la tifo hadduu ruuxu kari karo, way hadduusan kari karin ku adkaatana inuu xiiro ama shay kale zuuliyo uu isticmaalo ama kareem ha noqoto, iyagu nuurad bay bedelka isticmaali jireen ayaduna dhib male bulay macna. wa taqliimu al-adfaari iyo cidiyaha oo la gooyo, cidiyaha jaritaankoodu iyadana
والسنة جماهير علماء قبان تقليمكم من القلم بالغكين هو القطع وقوينت ومعنى. وعن أنس وحلقه مالك ابن مالك رضي الله عنه قال وحولي وقت ولا وقتي لنا أنك في قص الشارب شاربت قابين تيدا إيه وتقليم الأظفار يعديها قوينتودا إيه والنطف الإبط يكالكلادة تفيد وحلق العانة يتمها قمير كحيرتان كودا intaa waxaa naloo waqtiyey oo yani loogu mudeeyey allaa tutraka inaan laga tegin akthara wax ka badan min 40 layla 40 habeen yani waa loo mudeeyey mudda loo qabtay waxaa naloogu mudeeyey 40 beri ka badan inaan la daynin oo 40 beri wixii ka badan in la daayo meesha loo daayay ay mamnuuc tahay macnaha طيب وقتا markuu leeyahay sidaas ayaa muslim iyo qeyrkii warinayaan oo waa naloogu waqtiyeeyay ama waa naloo xadiday waay cidii u xadiday muusan sheegin yaa waqtiga iyo xadidida qabtay siiqatu majhuul waay marka laakiin siday jamaahiirtu qabaan saxaabigu haduu waqta iyo umirna iyo haduu yiraahdo waxa la yiraahdaa waa marfuucun hukman Allah subhanahu لأن عد كلو توقيد iyo taxdiid iyo amar iyo sameyn karto shariic aan ahayn ma jiro sidaasina inta badan u isticmaal jireen macna رواه وري مسلم باوري وابن ماجه ورواه وحوري أحمد باوري والترمذي والنسائي وابو داود وقالوا وحين يراهدين رجني قرضا ضمبوه فيه حديث كدحديث وحي يراهدين وقت فيه أي عن أنس فيه عن أنس يو كورنا قال أنس وحوري وقت لنا ونو وقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها نو وقتي ومعناها نو مدي أما نو حددي طيب قرأوا مسلم ابن ماجه يوحي كوريان وقت صيغة للمجهولة وعدة وقتك قوتي أن للشيء رواية أحمد الترمذي النسائي أبو داودنا عدة وقتي يسيب شيكتيو وقت لنا رسول الله saas ku kala bedelayeen طيب tan dambe marka oo rafciga sariixa ah waqata lana rasuulullah wa dhaif sanadkeeda waxa ku jira nin la yiraahdo sadaqatu ibn muusa oo saduq lahu wahama dhaafi ba ku jira isagoo dhaafi ku jiro hadana wuxuu khilaafay nin la yiraahdo jaafar ibn sulaymaan oo isaga laftiisa dhaafi ku jiro laakiin isaga dhaama oo waa ninka wariyay lafdiga hore ee waqita ninka wariyay ba ka xoog badan ninka wariyay وقت لنا ساس درادد با الإمام أبو داود عليه رحمة الله وحو الرجحي رواية لها وقت وهي الأصح هي صحيح إنما بدن معنى وحو تلمامية وقتضوا ولقد لقوا مرفوع صريح لقد لقوا ضعف بقى كتير ساس معنى لما قربا مؤدها هي مقصود كسكمال بو إيمانه وقت لنا هدي ليلادنا والرفع الصريحة وقت هدي ليلادنا والرفع حكمي أول لو قرب حديثك هو مرفوع معنا وحنا فايدين يا إن مدداسي مدة كبضان أن لدين كرين الرمهاني إني ماشا كسي يالان شاربتو إني كتا على ماشا هذا عديوه إني ماشا كو يالان كالكيلة إني تيموه إساقا يالان قميركا تيمها كو يالا إيقنا إنا الحيرين الإمام النووي عليه رحمة الله وحو إليه مقصود كنا وحوي مددا لما رافين كروه أما مددا وحي كير كهوسية waxay ku xidhan tahay xasab الحاجة maaha in muddada lala sugo oo la yiraahdo muxuu 40 inta laga gaarayo weesay oo leysa waxay ku xidhan tahay muddada wixii ka yari inaad u baahato haddii muddada ka yar cididu kugu dheeraato inaad iska goyso haddii timuhu kugu baxaan waa inaad iska jarto waxa laga wadaa inta ka badan 40 wixii ka siyaasan lama dhaafin karo maqsuudku waa sida بعض أهل العلم سيدا سيكا قدسان لكن حديثك أفهمي وعن زكريا بن أبي زائدة علماء قاربان سيدا قبوه توقيت كاسي نبي قد لغي صلوات ربي وسلام عليه وحي كسياسا ورافين تيض والتحريم بإليه وحرام قارن وحي إليه هنوايا وكدو ذا يعني دلالة حديثك ومعناها كتسي وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير وعن عائشة رضي الله عنها قال ذو حيتر
qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi 10 toban min alfitrati bay ka mid yihiin 10 arrimood fitraday ka mid yihiin waxyaabaha wanaagsan ee ambiyadu rususha laga soo gaadhay wanaagoodana ilaahay qalbiga ku abuuray ibni aadamka ayay ka mid yihiin waxay yihiin qasu shaaribi shaarubtoo la gaabiyo wa icfaa'u lixyati gadhka oo la cafiyo icfaa dhammaystirid iyo kaamil yeelid way macnaha in la daayo sidiisa lagu daayo wasiwaaku weeye ka saddexaadna waa cadayashada wastinshaaqu lmaa'i waa midka afraadna waa biyaha oo sanka lagu jiido istinshaaq yacni marka la weysaysanayo in biyaha sanka xoog loo geliyo gudaha la geliyo leanno siduu nebigu sheegay sal alla alay wasalam gudahaas hoose iyo bacraarka ayaa shaydaanku baryaa marka timahaas midda kale biyuhu waa nadiifinayaan sanka markay gelayaan wastinshaaqu lmaa'i baa ka mida biyaha oo sanka la geliyo wa qasu ladfaari iyo ciddiyaha oo la gaabiyo riwaayadii hore maxay tidhi taqliimu ladfaar bay tidhi soo ma waa jaridda qasiguna waa gaabinta isma diidayso haddaad gaabisana waa okay haddaad salka ka martana okay dhimad wa qaslu lbaraajimi weeye midda kale qaslu lbaraajimi faraha xubnahoodoo la dhaqo baraajimtu waa jamcu burja waay waa jamcu burjuma dheh burjumadana waxaa la yidhahdaa caqdu اlasaabici wa macaatifuhaa faruhu meeshay ka laabmaan faraha xubnahoodu soo meelo ay ka laabmaan ma jiraan meelaha ay ka laabnaan xubmaha baa la yidhaahdaa baraajim la yidhaahdaa mufradkuna waa burjuma saas way macnaha marka dhaqitaankoodu bimacnaa waxaa laga wadaa ama markaad weysiisanayso ama markaad gacmaha dhaqanayso inaad si khaasa u dhaqdo oo dadaal goonayo mudnaan khaasa aad siiso meelaha faruhu ka laabnaan inaad dhaqdo ayaga laftoodu maadaama ay yihiin macaatif meel uu jidhku ka laabmo waxay u badan tahay waxbaa gala wasakhiya waxbaa gasha marka cinaayo khaasa in la siiyo ama ruuxu markuu weysaysanayo baa laga yaabaa haddaan si fiican loogu dadaalin inay weysadii ay biyihii ayna gaadhin sooma calaa hada alasaas baa marka loo leeyahay mudnaanta loo siinaya wa qaslu lbaraajimi faraha xubnahoodiiyo meeshay ka laabmaan oo la dhaqo wa natfu libti kilkilada oo timaheeda la tifo oo la gooyo wa xalqu lcaanati timaha gumeerka oo la jaro oo la xiro waintiqaasu lmaa'i iyo biyaho lagu istijoodo yacni wuxuu ka wadaa alistinjaa'a buu ka wadaa intiqaaska bimacna alistinjaa sidaa waxaa ku fasiray wakiic bnu jaraax iyo culimo kale oo culimmada xadiid ka mida iyo luqada qaala zakariya wuxuu yidhi yani xadiidka dib markaad sanadku inoo sheegay u fiirsato zakariya bn abi zaa'ida zakariya bn abi zaa'ida ayaa wuxuu ka warinayaa muscab ibnu shayba soo ma qaala zakariya wuxuu yidhi qaala muscabun muscab wuxuu yidhi oo sheekhiisa ah wanasiitu waxaan halmaamay alcaashirata tii tobnaad waan halmaamay ilaa an takuuna inay tahayba mooye almadmadata luqluqashada yacni wuxuu leeyahay aniga oo muscab ah yaa halmaamay ilan 10 bay ahayd soo ma 10 min alfitra soo maahan 9 buu sheegay tii tobnaad buu marka wuxuu leeyahay waan halmaamay laakiin waxaan u malaynayaa inay luqluqashada ahayd طيب روى حوري حديث كاسي أحمد بوري ومسلم والنسائي والترمذي كذلك وحى صوصاري أبو داود ابن ماجه يقولون ويصوصاري وحى تحسيني حديث الإمام الترمذي الشيخ الباني حافظ بن حجر نبو صحيحية لشواهده فتح الباري طيب حي للسند كيس الضعف باكوتشرة مصعب كابن شيبة مصعب كاسا ضعيف وضعف كوتشرة ما دام مصعب وضعف كوتشرة سندكم مركب ضعيف لكن حديثك لشواهده بو حسن كويه مركب سجين حديثكم يعني قيبة كم إذا وحبلي شواهد في الصحيحين غير كتب لكن سياقه هذا وسدا كويمت يعني سند كيس ضعف باكوتشرة واس حسن كحديث أهان معنا باب في الختان انت مركب وحوي خصاش فطرده oo koobay waa dhowr mas'ala ayuu si gooniyo marka u saari doonaa oo mudnaan u siin doonaa sheekhu baab u sameeynaya baabun wuxuu baab u yahay baabun fil khitani guditaankii ayuu baab u yahay waa masdaru khatana guditaan ama wuxuu noqon karaa
meesha la guday ee la jaray ayadana khitaan waa la yidhaha ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alghuslu min xadiidkii muslim ida altaqa alkhitaanaan khitaanka waxaa la yidhahdaa meesha birtu martay ee la jarayna waa la dhahaa jaritaanka iyo guditaanka lafteeda ficilkana waa lagu iطlaaqa saas way macna ayib عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوري اختتن وحا إسجدي إبراهيم با إسجدي خليل الرحمن الله الرحمن متكو شعلاءها بعدما أتت مركي تمتكذب عليه كركيسة 80 سنة 6 سنة مركي كركيسة كي مادين وصومرين و6 سنة أي مرين كذب أي إسجدي واختتن وحونا إسجدي بالقدوم آلة قدوم كليلة متفق عليه إلا لكنزي أن مسلم لم يذكر موسى شيئا السنين سندها موسى شيئا يعني بخاري ومسلم أحمد بن صار غير كنت لكن رواية مسلم كمتشرته بعدما أتت عليه 80 سنة كمتشرته اختتن إبراهيم خليل الرحمن واختتن بالقدوم رواية مسلم ترى السنده هو كبح سنته لكن بخاري أحمد غير كود با يقدر معنا قدوم كوحل هذا لما معنى علماء قار كوفة سيران آلة النجار والإله متك الواحدة كالشقية قلبك والواحدة كو جوجوست جدنت إيو فاسك إيو حيالهم واجي ورا استعمال الشرين والإله هذا وحكلوا أيضا لقوا إطلاقه علماء قار كذا إليهين قدومك waxaa laga wadaa meel magaceed waay oo meeshii nabi ibraahim markuu isgudahayay uu joogay baa qaduum la dhigi jiray macnaha horaha ka xoog badan oo laga dhigo aaladii uu isku guday ee uu isticmaalay in laga wado ayaa xoog badan طيب xadiidkaasi waxa daliishaday culimada jumhuurtooda oo waxay u daliishadeen in guditaanku uusan waqti lahayn oo xilliga ruuxu yar yahay kaliya aan la gudayna xataa haduu weynaado in la gudayo waqti muayyanana uusan lahayn waxa kale oo daliishaday xadiidkan culimada qabta guditaanka inuu waajib yahay waxayna ka daliishanayaan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam 8 sano kadib inuu isgudaayay mashaqo iyo dhib aan sahlanayn baa ku jira laana ragga waaweyn gudidooda iyo ilmaha yarka guditaankoodu way kala dhib badanta sooma xubinkii baa adkaaday goyntiisu markaa waa mashaqo aan caadi ahayn ma sahlana haddana maca dalika xilligaasu nabiyullaahi ibraahim jaray oo isguday allana tabaaraka wa tacaala nabigiisa wuxuu ku yidhi thumma awxaynaa ilayka أن اتبع ملة إبراهيم نبي وحى الله وحيودي نبي إبراهيم دينتي سرع آياتي كلنا واتي أهيد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده نبي إبراهيم باكم ذا كواسا إلهي هنونيه هنون قودي كودا يالي نبي صلى الله عليه وسلم مركا ما دام النبي إبراهيم دا اسكوك ذي نبي جينانا كودا يالي وشرعي جيني مركا ساسي معنا سيداس درادت mashaqada iyo dhibka inta la eg shay sunna ah looma mareen dhibka inta la eg waxa loo xambaarsado loo galayo waa waajib sharci culimadaas daliishaday mas'aladan waa mas'ala khilaafiya طيب mas'aladaasi waa mas'ala khilaafkeedu uu caan yahay oo guditaanku ma waajiba mise waajib ma aha waan tilmaami doonaa insha Allah ta'ala wa an sa'id ibn jubayr radiyallahu anhu qala wuxuu سئل وحا لويديه ابن عباس رضي الله عنهما oo waxa lagu yiri mithlu man ruuxe oo kala baad anta adigu ahayd xiina goortii qubida la oofsaday rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka markii la oofsaday ruuxe oo kala ahayd yaani da'daadu intee bay ahayd way macna qaal wuxuu yiri ana anugu yawma idin maalinkaasi makhtuunun mid la guday baan ahaa buudi wa kaanu waxayna ahaayeen لا يختنون كوا أن جذين الرجل ننك حتى يدرك إلى أوقان قاره رواه حوري البخاري بوري ابن عباس وحل ليلي وقت النبي قل لمن صلى الله عليه وسلم
inteed jirtay markaasuu wuxuu yidhi kolley waan gudnaa buuhi caadadooduna waxay ahayd ilaa ruuxu qaangaadho mayna gudi jir markuu qaangaadho unbaa la gudi jiray meeshaa macnaha qaangaadh baan ahabu ka wada wuxuu rajaxayaa ra'yiga qaba inuu ibnu cabbaas xilligii nebigu dhimanayu qaangaadhaha culimmada qaarkood waxay leedahdeen nahaza albuluuq bay yidhahdaan wuu ku dhowaaday laakiin ma qaangaadhin bay qaarkood dhahaan ayib waxaa deliishanaya sidoo kale adilada culimmadu jumhuurtuu ka mid yahayo ay qabaan laazim ma aha in qaangaadhka ka hor ilmaha la gudo way bannaan tahay laakiin laazim ma aha bay leeyihin qaangaadh wuu ku gaadhi karaa isagoon la gudin wakhti go'an oo shareecadu u sheegtayna ma jiro sidaas daraaddeed cala araajix hadduu markuu dhasho la gudo haddii maalinka toddobaad la gudo haddii laga dibdhigo wax taxdiid oo rasmiya shareecadu uma samayn xadiidkanse waxaa ka muuqata ibnu cabbaas inay saxaabada iyo salafku samayn jireen markuu qaangaadhay inay gudniinka samayn jireen mase keenayso inta ka horraysa in la gudaayey inay mamnuuc tahay lagama qaadanayo macnaha wacan ibni jurayjin waxaa laga warin qaala wuxuu yidhi ukhbirtu waxaa la ii warramay can cusaym ibni kulaybin ayaa la iiga warramay can abiihi yuu ka warramay can jaddihi can abiihi xaaluu ka warinayo isaguna can jaddihi abkuna can jaddihi awowgii uu ka warinayo annahu isaga jadku jaa'a wuu yimid ila nabiy nebigu u yimid sal alay wasalam rasuulka sal alay wasalam ayuu u yimid faqaala markaasaa wuxuu yidhi qad aslamtu waan islaamay yacni cusaym ibnu kulayb awowgii baa u imaanaya nebiga sal lay slam markaasuu yidhi waan islaamay qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam alqi rid canka xaggaaga shacra alkufri gaalnimada timaheeda iska rid gaalnimada xilligaad gaalka ahayd timihii kugu yaallay iska ridoo iska xir waay yaquulu wuxuu ka wadaa yaquulu wuxuu leeyahay oo ula jeedaa way axliq fur yani ixlaq ama axliq yani xiir buu ka wadaa bimacnaa alqida ayuu fasiray alqida macnaheedu waxa weeyaan waa xiir ayib qaala wuxuu yidhi wa ahbaranii waxaa ii warramay aakharu nin kalaa ii warramay macahu la jirankiisa ana الnabiya nebigu sal lay slam qaala inuu yidhi liaakhara nin kale inuu ku yidhi alqi tuur canka xaggaaga shacra alkufri nin kaloo soo islaamay inuu nebigu ku yidhi iska tuur timaha gaalnimada wakhtatin isna gud isgudoo iska goo yani buuryada iska jir rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda iyo abu daawuud baa wariyey xadiidkaasi cusaym ibnu kulaybin can abiihi can jaddihi xadiidkaasi waa xadiid daciif xadiidkaasi ma sugna dacfigiisana waxaa keenaya ibnu jurayj wuxuu yidhi ukhbirtu cidda u sheegtayna muusan sheegin waa mubham waasidadaasi jahaala ku jirta waa midda labaadee cusaym nin la yaqaana ma aha aabbihii kulaybna nin la yaqaana ma aha ayib aabbihii kulaybna lama yaqaano bal wuxuu leeyahay yani culimmada qaarkood waxay leeyihiin ibnu jurayj ninka uu qariyey oo uu leeyahay ukhbirtu can cusaym ee ibnu jurayj u warramay ibni cadi wuxuu leeyahay waa ninka la yidhaahdo ibraahim ibni abi yaxya matruuk buu ahaa waa ninka imaamu shaafici caleyh raxmatullah sheekhkiisuu ahaa imaamu shaafici baa waxoogaa ra'yi wanaagsan ka haystay laakiin muxadisiinta intooda kale daciif buu ka ah bal matruuk buu ah dacfigiisu shadiidi ninka uu ibnu jurayj meesha ku qariyey marka waa ninkaasay leeyihin yuu ibnu cadi leeyahy hadduu ninkaa noqdana sanadku wuxuu noqonayaa daciif jiddan sidaa hadday noqotona ma kabmayo saas daraaddeed waxaan isleeyahay sheekh albaani caleyh raxmatullah oo xadiidka xoojiyey oo taxsiiniyey shaahid dabaraani uu soo saaro sanadkiisu isagana daciif yahay ku xoojiyey ibnu taymiyana ka soo naqliyey inuu xoojiyey oo deliishaday istidlaalkaasi iyo xoojintaasi ma xoog badnaa maxaa yeele xadiidka haddii sanadkiisu uu daciif jiddan yahay ma kabmo kan kale lagu kabayana sanadkiisu waa daciif sidaas daraaddeed waxaa sawaab ah xadiidkaasi inuusan kabmaynin daciifna yahay saas macnaa laakiin sheekh albaani waa taxsiiniyey warka murtidiisa isu soo ururiye axaadiidtaa waxaa loo deliishanayaa gudniinka
mashruuciyadiisa mid lagama doodsana rag iyo dumarba guditaanka iyo gudniinku inuu mashruuc u yahay mashruuca waa wixii bannaan oon shareecadu diidin taa iyada ah rag iyo dumarba inuu mashruuc u yahay khilaaf kama jiro saas daraadeed baa alimaam ibn xasmi calayh raxmatullah wuxuu soo guuriyey wuxuu yidhi ittafaquu calaa ibaaxati alkhitaani linnisa xataa dumarka guditaankooda inuu yahay shay mubaax ah bay isku waafaqeen buu leeyahay ibnu qayimna wuxuu leeyahay inuu dumar iyo ragba uu mashruuc u yahay layskuma khilaafsanaa laakiin waxaa laysku khilaafi doonaa ma waajibba mise waajib maaha mashruuciyadiisa iyo inuu bannaan yahay hadal kama joogo laakiin waxaa lagu kala tegi doonaa xukunkiisu ma waajibba mise waa ka sokeeya taasaa aad iyo aad markaa laysugu khilaafiyo waxaa la kala qaadayaa ragga iyo dumarkaa la kala qaadayaa labadabana waa laysku khilaafsan yahay alimaamu shaafici calayh raxmatullah iyo in badanoo culimmada ka mida waxay leeyihiin wuxuu leeyahay ragga iyo dumarkaba waajib way in la gudo xanafiyada iyo maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin ragga waa mustaxab dumarkana waa mustaxab shaaficiyada qaar ka midana doorto rag iyo dumarba in la gudaayo laazim ah bay leeyihiin waa shay sunna qaarna waa waajib bay cabireen qaarna way kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen dumarka ayuu waajib ku yahay waa shaaficiyada fi lmashhuur iyo xanaabilada amaa waxaan dhihi lahaa raggu waajib ku yahay laakiin dumarka waajibku ma aha adiga araadaa kala gedisan baa la qabaa ragga waxaa loo badan yahay oo jamaahiirtu ay qabaan ragga inuu waajib ku yahay dumarka marka loo yimaado in badanoo ka mida culimmadu waxay qabaan inuusan waajib ahayn qaarna waxay qabaan waa laazim qaar waxay qabaan waa iska bannaan yahay waa yacni mashruuc laakiin cid qabta ma jirto culimmada muslimiinta ka mida xataa dumarka xaaraan buu ka yahay wax qaba ma jiro xaaraan buu dumarka ka yahay oo lama gudi karo oo ciddii gudda waa la ciqaabi wax culimmada islaamka oo qabtay ma jirto bal ijmaac bay ku soo guurinayaan calaa mashruuciyatihi fii xaqi الnisaa wاlrijaal ha ka doodeen markaa kadib ma laasimbaa ma mustaxabbaa ma mubaaxbaa saddexda ra'yi ha u kala tagaan laakiin inuu mashruuc yahay oo uu bannaan yahay hadalka ma joogtaa iyada saas way macnaha ayib labadooda marka la fiiriyana dumarka marka la yimaado fii xaqihim ayaa waxoogaa khilaafku sii xoog badan yahay oo in badani qabaan inuusan laazim ahayn adilada soo aroortay ragga ku soo aroortayna iyo yacni cumuuman la deliishanayo guditaanka mashruuciyadiisa loo deliishanayo rag iyo dumar mayna kala qaadin ha ahaatee haddana maca daalika masaladu waa masale khilaafiya masaa'isha noocaas oo kale oo culimmadii salafku ku kala tageenna ra'yiga adiga aad qabto aduu ku khuseeyaa laakiin haddii lagugu khilaafo daliil lagugu khilaafo ama dhinac kale dadka la raajix noqoto inay qaataan bay xaq u leeyihin saas way macnaha haddii la gudo khayr wa baraka haddii la gudi waayo sidaa laysaga daayo in badanoo culimmadii sunnada ka mid ah qabta bal bilaad badanoo hadda muslimiinta ka mida maba la gudoba bal muxuu ahaayey sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah cadad min kutubihi wuxuu leeyahy waa iska yani wax wey waa iska sunno haddii laga tago laa ba'sa buu leeyahy fii xaqi الnisa dumarka marka la fiiriyo macnaha laba qodob marka aan baraarujinno intaynaa qodobkaa ka gudbino qodob waxa weeye waa gudniinka dumarka marka laga hadlayo ee shareecadu qabto waa gudniinkan soo tilmaannay ee xadiidka ummu catiya nebigu sal lla alay wasalam ee culimmadu bimajmuuci turuqi ay ku taxsiiniyeen nebigu yidhi sal lla alay wasalam akhfidii walaa tunhiki ama tanhaki yacni waxa weeyaan gud salkana ha ka jarin salka ha ka goynin salka ha ka goyn maxaa laga wadaa bimacnaa waxa la jarayo wax laga goynayo waa qaybtan soo tilmaannay oo meeshay kaayidu ka soo baxdo korkeeda cad yar oo ku yaalloo jilicsan kaasaa horta laga hadlayaa jariddiisa wax ka jariddiisa iyo jarid la'aantiisa midka nebigu uu ku leeyay sal lla alay wasalam yacni wax ka go
salkana ha ka wada jarinna kaa isagaa wa cilooyin badan buu nabigu ku celiyay sallallahu alayhi wasallam shahiyadeeda iyo dareenkeeda u nafci badan ninkeeda u roon wajigeeda u qurux badan cilal badan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku celiyay gudniinka marka sharcigu uu qabo culimaduna ay ka hadlayaan ee dumarka waa kaas waxay leeyihiin adna shay waxa ugu yar baa laga jaray waxa ugu yar fiida ugu koraysa waxa laga qandhuufanay bas in salka laga wada jaro ama goyntiisa la ziyaadiyo waa khilaafu sunnah in inta laga sii siyaadiyo gabadha operation in qaliil lagu sameeyo oo xataa muxuu ahaa bishimaha la sii xoqo la sii jaro oo haddana la isku dhajiyo kaas waxa la yiraahdaa al-khitaanu al-fir'auni baa la yiraahdaa diinna ma sheegin sallakum le kutubta fiqigana laga heli maayo bal waa jariimo iyo dambi aan sahlanayn saas daraadeed gudniinka fir'auniga diini ma qabto dhibaatooyin fara badan waa leeyahay waa caafimaadka u noqonaya gabadha iyo dareenkeeda u noqonaya dhalmada u noqonaya waxyaalo fara badan baa ka imaan mashaakil fara badan baa ka imaanaysa taasi marka diini ma qabto intii samaysayna Allah u dambi dhaaf intii maqashana mas'alada hal iska jiro mas'ala sahlan ma far inaad goyso oo ruuxa farta ka jarto ayaa ka roon in gabadha xubinkeeda lagu ciyaaro laana farta ka fudud xubinka joogitaankiisa shaqada uu qabanayo iyo fartu shaqaday qabanayso xubinka ka muhiimsan saas daraadeed waa khalad aad u weyn waana caada jaahiliya oo aan diinta sal ku lahayn taa meel iska dhig ama gudniinka sunniga ah waa ka aan ka hadalay oo qiyaasta ugu yar in xubinka fiidiisa kor laga taabta intaas way inta kutubta fiqi culimadu ka hadleen khitaankii nabigu yaqaanay sallallahu alayhi wasallam ee soo aroor waxa dhanka kale ah oo isagana baraarujin mudan xamlo waxa jirta ay wadaan gaalada iyo hay'adaheeda iyo in gaala raacya iyo in badan oo iska niyad fiican oo mukhlisiinaho laakiin muqaffaliin ah la iska isticmaalo maxay leedahay waxay leedahay dumarka in la gudaayay waaba jariimo waana xaraam ruuxii gudana ha la soo xidho alla ciqaabo maxkamada la saaro waa nidaamka reer galbeedka waa taa iyada ah waa mas'alo ujeedda leh aslan bana waatan soo tilmaanay gudniinka in la yiraahdo shariicada ka mid ma aha waa qowl aan hadda ka hor soo marin ummadda islaamka axad culimada ka mid oo yirina ma jiro waxaan soo tilmaanay culimada qaar waxay leeyihiin waa mashruuc oo waa banaay qaar waxay leeyihiin waa mustahab oo waa sunno qaar waxay leeyihiin meehe waa waajib laakiin citiri waa xaraam culimada islaamka ma soo marin waa xaraam marka waa la isu ciqaabaya war gaalo waay waana war reer galbeed waay waana war hay-aduhu iyo waxan kadaata ay wataan waay ujeedadiisuna waxa waaye sida ibn qayyim alayhi rahmatullah uu tilmaamay goynta xubinka qadarka laga goynayahay wuxuu leeyahay ibn qayyim alayhi rahmatullah kitabkiisa tuhfatul mawdudka tuhfatul المولود تحفة المولود في أحكام المولود مولود wuxuu leeyahay xubinka jaridiisu xikmadda ku jirta waxa weeyaan buu leeyahay wuxuu dheelitirayaa oo miisaamaya shahwada haddaan la jarin oo aan la dhaawicin shahwadu ziyaaday noqonaysa wabitaali waxay keeni kartaa in la xakamayn waayo oo hadhow zino iyo faaxisho iyo laga adkaysan waayo haddii la tirtirana oo dhaawac weyn loo geystana shahwadii oo dhan baa baaba'aysa goyntan yartaa marka waxay miisaamaysaa oo isdheelitir ku samaynaysaa shahwadii in ku filanna gabadha waa u soo reebaysaa intii siyaadada xumaanta ku ridi lahaydna waa la tagaysaa waa la jaraya gaalo oo marka gaaladu ujeedaday leeyihiin iyo kuwan gaala raacida hay-adahoodu ujeedaday leeyihiin waxa weeyaan gabdhaha muslimaadka inay fasaadaan ujeeddo kaloo ka dambaysa ma jirto guryaha laga soo baxo la fasaado zinadu faafto dhalinyaradu isku dhex qubato ayagu halkaasay ka duulayaan wadaad marka mas'alada un meel darafa ka soo qabsaday ama war aan haynin ama waxoogaa lacaga la siiyo la yidhi gabdhaha guditaankooda la dagaalan oo siminaarro qabanahay baa masaladii ku kadsoomay markaasaa waxaad arkaysaa magaalka siminaar baa ka soo muxuu siminaarkani wadaaddaa dhigahayo
waxaa laga hadlayaa gudniinkii gaala gudniinkan ay u socoto ujeedda kale adigii inaad u sahashood la shaqaysana mas'ala sahlan ma masalada marka in loo kala qaado xuduudda ah ma bannaan tahay mise ma bannaana ciddii iska daysa oo ku qanacday dhib male ciddii gudda oo gudniinkii sharcigaa gudda oo ku qanacdana dhib male laakiin in jariimo laga dhigo waa mas'alo shareecada totally khilaafsan markay gaalo wadatana waa mukhattad gaalo wadato waaba ka sii khatarsan yahay markaa macna sidaa in masalada loo fahmay marka u baahanta baabu akhdi shaaribi shaarubta qaadid qabashadeeda iyo baab u yahay iyo wa icfaa'i lixyati iyo garhka sii dayntiisa faraha laga qaado shaarubta qabashadeedu bimacnaa wax weeye in la gaabiyo ama la xiiro sidaan u tegi doono wa icfaa'i lixyati iyo garhka oo la sii daayo faraha laga qaado oon la taabanin can zayd ibni arqamin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man lam ya'khud ciddii aan qabanin min shaaribihi shaarubtiisa xaggeeda aan wax ka qabanin oon wax ka jarin falaysa minnaa naga mid maaha yacni dariiqannagii iyo jidkannagii ma hayo waana khilaaf rawa waxaa wariyey axmed baa wariyey wاnnasaa'iyu wاtirmidiyu waqaala wuxuu yidhi xadiiثun weye صaxiixun xadiid صaxiixa oo muxuu ahaayey sixadiisa uu shak ku jiran man lam ya'khud min shaaribihi falaysa mina xadiidkaasi wuxuu ka mid yahay axaadiista ay deliishadeen culimmada qaar ka mida oo ku tegey shaarubta in la gaabiyo inay waajib tahay waana sida daahirka axaadiista laga faa'iidaysanayo badankoodse culimmadu waxay ku tageen waajibmee waa sunno daahirka axaadiistana waxay xoojinaysaa inuu waajib yahay gaabintu in la sii daayo faraha laga qaadana ay xaaraamta xaggeen ka qaadanaynaa laysa minnaa naga mid maaha baa le ma shay sunno ah baa laga mid maaha ruuxa la dhihi oo bannaanka loo saari oo lagaga beri noqon maya ruuxaasi khalad iyo dembi buu galay way macnaha aan yarayn ayb وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحوري جزوا قابية الشوارب شاربيالك وارخوا سيداية كتك فراك قال اللحى قررك وجمع اللحية قرركنا داية وفراك قال وهوبا بحنا خالفوا خلافة مجوسة خلاف قرم مرق مجوسة روح وري أحمد باوري ومسلم يا مسلم باوري حديث كاسي لبدي مسألة وكاه الله يشارب تنقابية قر كانت سي دايو أو دايو فرحة كقاضي علادنا وو شيغيو مجوسة كو خلاف عليه وحين كفها أن ماشاسي مجوسة أيا شارب تسي دايسن جرتي قر كان حيري جرتي خلاف على المرك أصل كنا وحوي قاعدة من قواعد الشريعة مقاصد دواوين بكمت مخالفة قال هذا الخلاف وعادات كودية رقم كودا لغو خلاف وحي نسكسو أروري استقوى بقونيديس وأنا مسألة وكالي في الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتاب كيسا اقتضاء الصراط في مخالفة أصحاب الجحيم صماهم يعني وحويان مسألة سكو سابسين إن لخلافنا أسل كيد وواجب حديث كان وحو حوجينا يا حديث كورا معنوه كتصيو شاربت إن لقابيو إني واجب تهي إن لسيدايو فرها لقا قادون لطابنين إني حاران تهي لأن وحو كعليي سيدين تيدا وحا كجرتا موافقة المجوس gaabinteeda iyo jarideedana waxa ku jirta mukhaalafatul majuus baa ku jirta saas macna in majuusta la khilaaf tayib waxa kale xadiidku ku daray garka sii daaya oo faraha ka qaada shaarubta in la gaabiyo ama la xiiraayay culimada badankood waxay qabaan iyo jumhuurtoodu inuu sunnay qarna waxay qabaan inuu farad waajibaya sidaasana daahirka xadiistu ay xoojinaysaa وحنا الرجحي الإمام ابن عربي ابن حزمي الشوكاني غير كود بالرجحي شاربته إن لسيداي إن حرامته وفرع لقى قاضو وحرام سيدا سان هذا الظاهر كحديث إنه قام موقته
xadiidka labadan xadiideen hadda tilmaanay waxa kale to muxuu ahaay khaasatan markii ay noqoto inaad gaala kaga dayanayso ayaduna waa ka sii xaq jirtaaba waxa kale xadiidku tilmaamay waa xadiidkan labaade garka in la sii deynayo isaga la cafinayo oo faraha laga qaadayo وعن ابن عمر وحا لغا ورين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نبيغا وحو كورين قال نبيغا انه يري خالفوا خلاف المشركين مشركين خلاف وفروا معانكم خلافنا وفروا دمايسترا اللحى غريالك اما غررك دمايسترا او دمايسترنانتودا u daaya waxfu salka ka gooya ashawariba shaarubiyalkana salka ka jara muttafaqun alayhi waxa ku soo aroortay shaarubta al-ihfaana way ku soo aroortay waxa kale oo ku soo aroortay al-jazz waa ku soo aroortay juzzu shawarib somadna xadiiska hore jazzigu waa gaabinta waay qasiga waa kan iyadana soo martay soo qassu sharib waa gaabinta بينما إحفاظ أحف الشوارب بمعنى الاستئصال واي سلك إن لقى جرو علماء السلف لبدا مسألة قاربة مترجحين وقار واحد هذين شاربتها إن لحيروا إن لقابيه ما قارنا واحد ور حيريد مثلى كجرتي وننكي هويني بو كانه هل لقابيه وحون هل صوروا قارنا هالكاسي مرين الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو الصحيح وحوليه ما دام الله وضب حديثك كسو أروري إناد قابسان وادهيلي كرتا إناد حيرتان وادهيلي كرتا الله وضب وجائز بوليه سيدا صان الصواب معنا طيب أما مسألة قرك كسابسان هي سيدين تيسة يضنا ومسألة خلافية وحي علماء إسلام أقوليه حيري ديسو إني سنبنانين سأصدرت ابن حزم عليه رحمة الله وحسوق قري إجماع إن لسلو أقوليهم لسكو خلاف سنين على أن إعفاء اللحية فرض قالك إن لسيدايو إن يواجب تهي لسكو خلاف سنين ابن عابدين وحو ليها يساقنا إمامك حنفقها الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبيحه أحد قركا إن لقتشره وحي كي كهوسيا قبشده قبضده وحوي قركا مركات ساء قبطه وحي كسياتسن مرن باقلي دونا لكن وحي عن قبضده يقعنته مركي قبطه عن دافسيسنين إن لا تشربوا ليه هاي أول لقوياي سيدا أي مغاربة قاركوت سميان ragga dumar iska yeelyeelkuna ay sameeyaan ee dumarka isku shabahaya arinta noocaas wuxuu yiri ahad culimada kamid oo baneeyay ma jiro buri waxa laga hadlay ogow waa wixii qabashada yaani ka hooseeya qabashada wixii ka siyaadsan waa mas'alad doodeed ku jirto ama wixii qabashada gacantu markay qabato aan gacanta ka baxsanayn taas laga hadlay xiirid iyada wargeeda iska bada حيرد يدا وركد iska bad kadib waxay ka doodayaan gaabintu ma xaraam ba mise xaraam ma xiridu inay xaraam tahay warkeeda meel waay waxana ku tusaya ahadiista qaar way reebto nabigu nahyi ku soo arooray salawaatu rabbi salaam alayhi ha xirina ha gaabinina ahadiista qaarna amar bay bixisay wal asl fil amri al wujub waxa kale lagu culeynaya waxa ku jira التشبه بالنساء دمر كل اسكو شبه وانا حرام لأن وحوي إلهي تبارك وتعالى الرجا وحو قرك أوسي دمر كان أوسنوسي حكمة با كجرت شهامة كجرت شهامة رجا نمو إلهي تبارك وتعالى وحو الرجا أوسي ونوع ميزاء مركز السجي ودن سلك كمرت صوتش جاي وجه دمر من نقول يا تشبه بأمرك كجرت علماء قاركود وحين وحى كجرة تغيير خلق الله abuurkii ilaahay oo badashay baa ku jiray mas'ala la yaqaan marka ma ficil ahaan nabigeena sallallahu alayhi wa sallam alayhi garkiisu sidoo u weynaan jiray saxaabadu markay gadaashiisa ku tukanayaan waxay ku garan jireen inuu wax akhrinayo garka dhaqdhaqaaqiisa ay arki jireen waxay ku tusay marka garka gadaal laga arkayo soo gar weyn ma ahayn
marka isagana waa sii daayay saxaabadiisuna waa sii daayeen amarna waa ku bixiyey xiiridana waa reebay iyo muxuu ahaay gaabinta kullu dalika axaadiistaas oo dhan ayaa nabiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka xiiriddu iyadu ma la ogola ama gaabinta wixii markii gacanta lagu qabto la cantoobiyo wixii ka siyaasan gaabinteeda iyo goynteeda waa mas'ala khilaafiya cinda muxuu ahaay salaf oo qaar waxay leeyihiin waa la gaabin karaa in badan oo culimmadii salafka ka mid ahna qabta gacanta markii lagu qabto wixii ka siyaasan waa la jari karaa qaar waxay ku khaas yeelayaan marka aad xaj aado ama cumro aado sidaa timaha madaxa u gaabinayso ayaad gaabin kartaa aarkan cabdullahi ibni cumar baana kutusaya soo socda qaarna waxay leeyihin xilli walba waad gaabin kartaa wixii ka siyaasan qabashada gacanta wixii ka siyaasan masaladaasi marka waa masale khilaafiya qadarkaasi waa khilaafiya ama xiiridda ayadu wax weeyaan masale sahlan maaha khaasatan haddana gaar ahaan markay noqoto in gaalo lagu raacayo gaalo lagaga daynayo leanna waa sunno ay gaaladu leedahay ayagaa waxay u muujiyeen oo dadka fahansiiyeen timaha garhka in la xihaayo inay qurux tahay marka saa walilasaf in badanoo muslimiinta ka mida yacni wax weeyaan muxuu ahaayey dagaal waxay kula jiraan garhka aan sahlanaynba dagaal hadday gaalada la geli lahaayeen laga yaabo inay kaga rayn lahaayeen bay garhka kula jiraan war garhkan maxaad ka rabtaa yaa ku diray garhka in la sii daayaa qurax in la xiiraayo waa foolxumo waa quruxna gaalaa inugu tidhi nebi maxamedna muxuu yidhi daaya waa qurux gaalana maxay tidhi xiira waa foolxume adiga labadaa mid dooro marka ya ama nebi maxamed baa qurux ku sheegay dooro ama gaalaa foolxumo ku sheegtay xiir labadaa khiyaar baa yaalla marka in garhka la daayo ayaa hadyigii nebiga ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi imaamku sheekhu wuxuu yidhi zaada albukhaariyu bukhaari wuxuu ziyaadiyey fa kaana wuxuu ahaa ibnu cumar wuxuu ahaa idaa goortii xaja uu xajiyo aw ictamara ama uu cumraysto qabada mid qabta ayuu ahaa oo cantoobiya calaa lixyatihi garhkiisa ayuu qaban jiray saasuu gacanta ugu cantoobin jiray famaa fadala wixii siyaada oo gacanta qabashadeeda ka siyaada akhadahu waa qaban jiray marka waa jari jiray macnaha waa xiiri jiray oo goyn jiray macnaha aarka cabdullahi ibn cumar waa aar saxiixa aarkaas waa aar saxiixa oo muxuu ahaayey xajka iyo cumradiiyo markuu aado wixii qabashada gacanta ka siyaadsan inuu jari jiray isla aarkaasoo kaleoo mawquufa wuxuu isaguna ka sugan yahay abu hurayra isagana waa ka sugan yahay labadaa aar ayuu sheekh albaani caleyh raxmatullahi u cuskaday mas'alada markuu yidhi garhka wixii ka siyaadsan qabashada gacanta waa la jari labada aar baa wuxuu siiyey xukmu rafci oo wuxuu yidhi aar ibnu cumar maadaama uu nebiga aad ugu dayan jiray inuu khilaafana ay yaraan jirtay waxay ku tusi inuu arrinka nebiga uu ka hayo macnaha abu hurayrana sidoo kale labadan aar buu marka xukmu rafci siiyey akhiiranna waa ka fatwooday in garhka la gaabin karo wixii ka siyaadsan qabashada mas'aladana kutub badan baa laga qoro aad loogu radiyey oo niqaashkeediiyo ruduuddeedu waa iska fara badan yahay ragga adur yani masaladaa u diiday waxaa ka mida muxuu ahaay sheekh ibnu cuthaymiin iyo sheekh ibnu baaz iyo culimmada sunnada laakiin waa masale khilaafiya adiga warka qabso wixii qabashada gacanta ka siyaadsan waa masale khilaafiya maxaa xoog badan maxaa daciifsan in la daayaa xoog badan alimaamu maalik caleyh raxmatullah isagu wuxuu dhihi jiray garhka oo faraha laga qaado ilaa uu iska dheeraado wuxuu dhihi jiray waa mamnuuc lanna nooc shuhuraa baa ku jirta shuhura waxaan arki jiray markaan jaamacadda dhiganayna magaalada madiina masaajidka waxaa joogi jiray nin garhkiisu uu gaadhayo jilbaha ayaa joogi jiray markuu masaajidka soo maro dadka soo dhex marayo dadka oo dhan baa wada fiirsanaya marka sheekh albaani laftiisa masaladaa wuu tilmaamaya marka heer ay noqoto shuhro dadkii o dhan aad ka dhex baxdoo lagu soo fiiriyo oo lagu soo daawado taa iyadaa imaam maalig waa diidi jiray oo wuxuu dhihi jiray waxoogaa muxuu ahay sida ha loo dhaamo adiga masaladu waa masale khilaafiya xiiridda khilaaf kuma jiro cala araajix laakiin wixii kaleeto oo qabdada ka siyaasan oo muxuu ahay ka kororsan ama ka baxsan khilaafkaasaa ku jira masaladu mar hadday khilaaf noqotona waxay ku xidhan tahay maxaa kula xoog badan ama maxaad ku qanacday markaad weydiisay dadka aqoonta leh saasay ku xidhantahay macana baabu karaahiyati natfi shaybi wuxuu baab u yahay cirrada oo la tifo karaahiyadeeda markaad cirrowdoo timahaagu caddaadaan inaadan cirrada maagin oo cirrada uun intaad timaha ka raadsato uun aadan tifin
dabcan marka la tifi karo waa markay cusubta sooma oo timahaaga ku cusub tahay laakiin haddayba kulli iswada bedelaan ma tifid baa marka taal waa isdhiibi marka hada wada la marka war male marka in cirrada lala dagaalamo guud ahaan ama habadata ama ha yaraatee taa karaahiyanimadeedu baabu yahay عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا تنتفوا هتفينوا هقويننا هالشيب عرضة هقويننا محايل فإنه إساقو نور المسلم مسلم كالنور كيسيوه روح مسلم كمؤمن افتين كيسي النور كيسيوه عرضه ما من مسلم مجرو أو يشيب عروبة يشيبة عروبة في الإسلام إسلام كالحديث diinta islaamka iyo iimaanka dhexdiisa ku ciroobaya ma jiro ilaa haduu jiro kataba Allahu wuxuu u qoraa lahu isaga biha cirada daraadeed ciroobida uu islaamka dhexdiisa ku ciroobay darteed wuxuu ugu qoraa xasanatan xasanu ugu qoraa warafacahu wuxuu u koryeelaa biha iyada sababteeda darajatan darajana waa u koryeelaa wa hatta wuxuu ka ridaa anhu xaqiisa biha iyada sababteed khati'atan dambina waa ugu dhaafaa marka waxa soo khayra ku jira رواه حوري حديث أحمد بن وأبو داود كذلك وحصو صار النسائي بن ماجه وانا حديث صحيح هو شيخ الباني وحليه هي وحسن صحيح طيب وحنا فايدين يا إن عرضة لحيري كرين لنا جوين كرين وانا عليه والروح مؤمن كنور كي سوا وانا مد النبي صلى الله عليه وسلم حديث كي كلا كتل المامي إن من إكرام الله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم إلهي وينينتي سكمتهاي مسلم كعروبي الدين كدحديس كعروبي كرامينتي سي شرفديس ووينين إله marka ciradu annaga waa dhibsanayna oo xogaa odaynimo ku tusoma khaasatan rag guurdoonka ayaga dhibay ku haysa ayna dadka kale ku hay xogaa marka culayskaas iyo dhanka iyo adduunyo adiga ha ka fiirinin baashan ajirna waa ku socda dambina waa la isugu dhaafaya darajana way leedahay ha iska jarin dayso saasi macna inay xaraan tahay in la gooyo ayaa waxa ku tagay bacdu ahli ilmi imaam an-Nawawina waa soo dhaweeyay ibn Rif'ana wuxuu ka soo guuriyay al-Imam Shafi'i fi nass al-Umm kitabkiisa buu ku cadeeyay buu timaha cirada in la jaro inay xaraamto laakiin iyo geedka ka tamkale nabaadka ka tamkale ونحوهما إلى لبدا وحي لمده وكراهية السواد هي مذهب كمدو كراهية نمديس انتماها مذهب مدو له بدل وعبابي هاي عرضي وحان لهلا دايو يعني لطيفين ولا تشرين وحان سن ممنوع هاين وباب كان كهليا إن هذا مذهب كذا عرض عطانك بدلي كرتو وتكو بدلي كرتو حنها ومذهب كيسو هاي شالله katam inaad ku dari karto kadamku isaguna waa nabaad sida xinnaha oo kale buuruhu ka baxaa inta badan midabkiisuna yara madow xigeen waay madow iyo casuus isku xig jira waay marka xinnaha lagu daro wuxuu u yara ekaanayaa madow xigeen buu noqonaa madow dikha maaha laakiin wuxuu midabkii yani ahaa casuuskii buu bedelayaa markaasuu madow xijinay saasa la yiraahdaa katamka waa geed noocaas ونحوهما أي وحي لمد وكراهية السواد يميذب كمدو كراهية نمتكيسا مدوغ انتماها لغو بدلو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال وحور جيء والك يعني بأبي قحافة أيال ليمد جيء والليمد والك يعني بأبي قحافة أيال ليمد وأبيه وي يعني وحويان يوم الفتح ما ننتي مكلا فرتيبا لليمد إلى رسول الله بالوليمد صلى الله عليه وآله وسلم وكأن وابا أسقو رأسه مدحيس ثقامة ويه ثقامة وجد نجار يعني محوها هاي وبحيسة إيوه مليه سبع عديهن جدها بحو كم ذي هاي مركا وبحيسونا آد بعديه ملها وبحينا وعديه تمها ابن آدم كمركا الرومان بوجيه لو شبهها wadaadada inuu geedaha naqaano bay qaar ku sheegi jireen laakiin muxuu ahaay wax nas ma leh yaani wax cad ma kolba geedun bay u soo dhaweeyaan oo mar geedii ay yaqaaneen mid muxuu ahaay ay ku magacaabaan
وكأن وبأسقوا رأسه مدحيس ثقامة ويهيجيت كاسي مدح عد ميريه سئي وبحيس بعده سيدا سوكال أسقوا دمودا يلا كان فقال مركز وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي اذهبوا لتق به إسقا إلى بعض نسائه دمر كيس قار كمدا حقود ولتقوا أجيا فلتغيره هبدشو بشيء وحونها كبدشو عرضا وحونها كبدشو وجنبوه كان فوقيا السواد مدوغنا كفوقيا وحي كلي كبدلسها كبدشو لكن مدوغا كفوقيا فلتغيره بشيء روح وري الجماعة جماعة باوريه إلا بخاري والترمذي مويه حديث كاس وحو إنه فائده انت ما عرضا مدب كودا لبدلي لكن أن مدو لغو بدلين طيب لفظة وجنبوه السواد لفظها والله يستع ووحا لغو دقينها وحا لليها واللفظ الشاذة رواد بدن كود مين الشيقين بالليه وعلى ضعيفين اياه meeshaasayna ka imaan doontaa culimada dooda ka qabta madowgu ma xaraama bis xaraan ma lafdadaas ayay sugnaanteeda dood ka qabaan طيب وعن محمد بن سيرين قال وحول سئل وحل ويدي أنس بن مالك وحل ويدي عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيغا علاميسيس اما تيما بدليدي وتيمها بدلي جري ايا لا ويديي فقال مركز وحول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله لم يكن موسى نهين شابا مدعي روبي موسى نهين إلا يسيرا وحير مويه يعني نبيغا وحا لا ويديي ما علامن جري اما تيميhiis ma bedeli jir markaasuu yiri ma bacir roobin ba wax yar mooyee ولكن أبو بكر iyo عمر ayaa bacdahu gadaashiisa khadaba cilaantay bil xinaa ibay ku cilaanteen wal katami iyo geedka katamka leeyahay waa kan hadda ka soo hadlayno madaw xigeenkaawa muttafaqun alayhi wazada wuxuu ziyadiyay ahmad wuxuu ku daray xadiidkaas qaala wuxuu yiri ninka la yiraahdo Anas wajaa waxa yimid Abu Bakr بأبي قحافة أي ليمد إلى رسول الله بأوليم صلى الله عليه وسلم وآبه يوم فتح مكة تمالنتي مكة لفرتي يحمله حال آبه حنبارسين سقوا وضوء آبه كان حتى وضعه إلى أودقي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي هرتيس إلى أصدق فقال وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحول لأبي بكر كيري لو أقررت هداد سوقي لهيد ودود دين لهيد الشيخ أضيق في بيتي قرقي سهداد دين لهيد لأتيناه وانو إيمان لهن أنك أتقي لهن لأتيناه وأتقي لهن بمعنى أضيق دأدنا محاد قرية سوغا سوكا حيس هدون نوبة هيها أنك ميش سوغا تقي لهن بنبي كورس الله عليه وسلم معوسى أولياء تكريمة كرامين درت لأبي بكر ونبي كرامين صلوات ربي وسلام عليه يعني قدرين إكرام أبو بكر وصمينه فأسلم مركاسو إسلامي أبو قحافة ولحيته والحال لحيته قركيسة والرأس مدحيسه كالثغامة ويهجيتك مرها عد أبح عد أوكل ولمدها بياضا حق عدانت سقوا مدحي كل وضع عدادي يقركي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم مركز أوحوري غيروهما مدح يقركة مهودة بدلا وجنبوه كفقية السوادة مذوقنا كفقية زاسي معنا طيب حديثك هرفا فاسم أنس بن مالك مركو ليه النبي سيدي سبا إن يربو عروبي رنتي به ونبي مركو جيريوني ورنتيو نبي مركو جيريوني صلوات ربي والسلام عليه لحدن يزاد حسن وجر تميه سإنت عدنا ولا ترين كري لكن معناها هذا ماها حنا موسى مرنين وأنس هدوسا أركين وحينوص على حديث لو تلمامه يا مسلم حديث كذا إنه نبي صلوات ربي والسلام عليه تميه سمريه مركا أنس أنتو أقام بوشاقي حديث كان وحديث كان لو دليشانيو إن أينم بنانين تمها إن لما ذوبيو مركا عروبان إن حاران تهي حديث كان لو دليشادوه عاكلو لو دليشاده حديث عبد الله بن عباس أبو داود وصوصاري غير كي شغلباني لا صحيح والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وحاهان دون ضد آخر الزمان كعلامان دون مذوقة سيدا الشمبيرتا قول ليدا قلقله هذا وكله عنه هذا مذوقة مرسان وكله ضد كاسي ما أورين دونان ودقون كتشند
حديث كاسي وحديث أي علم بدن صحيحين يعني أنا حديث تلو دليل شذا إني صنبنانين مذوق مرسيكيس كان يكاسا أقومهم سنة حديث تلو دليل لبدا حديث منا علماء قبطة إنه حرام هي آيات دليشنيس طيب ابن حجر عليه رحمة الله وحو سو غوريي hal mar waa la ogol yahay buu yiri in madowga la marsado waa marka dagaal lagu jiro mujaahidka waa la ogol yahay ittifaaq buu ku soo guuriyay uu baahay oo maxaa tima madow iyo tima cad jihaadka maxay u kala tari maxaa faa'iido ku jirta ya ninku markuu tima madow yahay waa laga baqi soo saas ma cadowgu laakiin in odayo gad cadaaday waa la baladaan daansan Soomaa xogaa marka waxa ku jirta nooc muxuu ahaayay jimatuurad iyo xoog ba ku jira ittifaaqan marka wuxuu leeyahay mujaahidka timihiisu cadaadeen way u bannaan tahay markuu dagaalamayo inuu timihiisa madoobay waxaan mujaahidka in baa laga doodsan yahay marka saas u dhigaya masalada culimada qaarkood waxay qabaan waa madhabka shaafiiciyada imaam an-nawawi uu doortay iyo qeyrkoodba waxay leeyihiin waa xaraam in timaha la madoobeeyo axaadiista aan sheegnay bayna daliishanayaan qaar culimada kamid waxay leeyihiin waa makruuh ee xaraam ma xanafiyada maalikiyada shaafiiciyada xanaabilada waa jumhuurta say culimadu u badan yihiin waxay leeyihiin xaraam ma aha waa makruuh yani dambi ka soo gaadhmay laakiin aad iska diisaa fiican qaarna waa ka sii dareen oo waxay yiraahdeen jaa'izun bila karaaha waa iska banaantahay bidhan wax karaahana kuma jirto ka bax bidhan warkaas waana madhabka xanafiyada waxa doortay abu yusuf iyo maxamed ibn hasan jamaaca saxaabada iyo taabiciinta kamida ku tagay oo fuqahadii saxaabada iyo taabiciinta qaar kamid waxay dhigi jireen wax dhiba kuma jiro tayib qolo kale waxay leeyihiin ragga iyo dumarka hal kala qaado oo dumarka loo ogolaado iyaga asal waxa uu ah ziinada wax badan in loo fasaxee ragana waa uga baahi badan yihiin dumarka ha loo ogolaado laakiin ragga ha loo diido waana ra'yiga isxaaq ibn rahwi mas'alada marka khilaafkaas balaaran baa ku jira xagee buu ka yimid labada xadiis iyo xadiista ku soo aroortay mas'alada waa la isku haystaa safaan adiga xadiidka horena dood baa ka taagan oo lafdiga wajannibuhu sawada ma sugayahay mise ma sugnaa laga muransan yahay حديثك كلا يعني هذا تلمامين يكون قوم يخضبون في آخر الزمان السجن السجنان تسال لجدو تصين السلف كنا واسكو خلافين ورك صو أروريو مسألة ده مسألة خلافية إن بدنا ندو حضر كيسا علماء السنة الركم إذا معاصرين تا أوجر كمدوبيستي وحيكون قنعين مذهب كرها هي إن يسوي إسكاو بنات كاسي قنعين مسألة ده مركب ومسألة نوعاسة labadan xadiis marka la fiiriyo mas'aladu inay xaraan tahay bay u xoog badan tahay sidaas laakiin ninka qabaay isaga qaba ninkay la xoog badnaatana isaga la xoog badnaatay ninkii ku khilaafo dhanka kale ay la xoog badnaatana hada wax way war male adiga dadka ma fikirkaaga ku qasb sidana kula xoog badnaatay dadka kalena sida kale la xoog badnaatay waxayna mas'aladu salka ku haysaa axaadiistaasi inay sugnaato dood baana ka jirto tayib wallahu a'lam sida ila xoog badani wax weeyaan in ay xaraan tahay madoobaysiga in madoobaysada in la marsado ra'yigaasa ila xoog badan wallahu a'lam laakiin masaladu waa mas'ala khilaafiya way sida marka xuduudaas in loo fahmay ku baahan وعن عثمان بن عبد الله بن موهب انت markii laga baxo waxa ayadu aan muxuu ahaayay aan horay looga hadlay timaha madow oo hadana la sii madoobaynayo ama timaha madow oo kalarada kale loo sameeyay taayada baad ahli waxay leeyihiin la baas dhib leh qaarna waxay leeyihiin warmeehe ziinada asalka madowgay ahayd kalaradan gala gaala laga dayanaya at-tashabbuh bil kufar ba ku jirtay hal la diido mucaasiriinta taana isku diidan وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال وحول دخلنا وان قلنا على أم سلمة أسو قلي فأخرجت ويسو صارتي إلينا أنك وحي نوصو صارتي من شعر النبي نبي تنتي صلى الله عليه وسلم قال كمده فإذا مركبا هو شعر كي تنتي مخضوب مثل علامه وبالحناء حنا لغو علامه والكتم كتم لغو علامه تيمي أي نوصو صارتي كتم علام با كمقدي يا حنه روى حوري أحمد باوري وابن ماجه والبخاري ولم يذكر موسى شيء بخاري بالحناء والكتم موسى شيء بخاري الوايد زمعي كو اكتاي ان لا يراهدو فاذا هو مخضوب
أما بالكتم والحناء إن لو قدروا بخاري رواية سكوما جرت ساسو كولا واسوغنتاي معنا حديث كان أم سلمة أو تنتي النبي أو علاما أي كنتي هي حديث كي هوري أنس أو يري نبي تنتي سبا إن بدن مع الروبين سألوا جمعنا وحلو جمعنا يا أنسنا إنتو أركيبو كورمي أم سلمة تيمه النبي صلى الله عليه وسلم أو علاما به شيء ساس درادد من علم حجة على من لم يعلم ساسي معنا اسم الديديزو يسوقنا انتو اوغابو شيغay iyaduna inay ogeyd bay keentay macna wa an nafi' an ibn umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabigu kana wuxuu ahaa yalbasu mid xidha ayuu ahaa an-ni'ala kabaha as-sabtiyata tibaha kabaha as-sabtiga loo iinaanay as-sabtiya ee haraga as-sabtiya wa nisbatun ila sabti waxa laga wadaa waa haraga looda iyo harag kasto la magdiyay tima yani waxaan u jeedaa kabaha laga sameeyo ayaa sabtiya la yiraahdaa saas macna as-sabtiya wa haraga la magdiye kabaha ka sameeysan kaana wuxuu ayalbasu mid xidha an-ni'ala as-sabtiyata ee haraga la magdiye ka sameeysan wa yusaffiru wa asayn jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam lixiyatu garkiisa bil warsi nabadka warsiga la yiraahdo wa za'faran iyo za'faranka ayuu ku asayn jiray wa kaana wuxuu ahaa ibn umarna wuxuu ahaa yafcalu mid sameeya dalika arrinka رواه وري أبو داود والنسائي وحديث صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم تيمها قركيسا وو عسين جري ورسغا iyo زعفرانكو waa nabaataadka dhulka ka baxo midabka lagu bedelo طيب ابن عمرنا asagoo nabiga kaga daynay sameyn jiray طيب xadiidka wuxuu xoojin inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam garkiisa inta cirowday inuu bedelay saas weeyaan وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك wuxuu yiri ان احسن ما غيرتم waxaad ku badashaan ka ugu wanaagsan bihi isaga hada shay cirradan aad ku badashaan al-hinnaa'u hinnaha way wal katamu iyo katamu in ahsana ma shayka ugu wanaagsan oo ghayrtum aad ku badashaan oo ku doorisaan bihi isaga hada shay cirradan aad ku badashaan waxa ugu fiican waxa way al-hinnaa'u way wal katamu iyo katamu waa kan soo sheegnay hinnaha iyo katamku waxay kala yihiin hinnahana waa kan aynu naqaano ee cas ama muxuu ahay jaalaha katamkana waa geedka aan sheegno waa nabaad madow xigeen ah isaga xinnaha marka la isku darana waxay noqonayaan casuus iyo madow isku jira ruux markuu ka yara fogay waxa isleedahay uu gadh madow yahay laakiin markuu kugu soo dhawaado gadhkiisa casuus baa ka muuqda saas macna marka katamka waa lagu qasaa markaasa wuxuu noqonayaa yara madow xigeen buu noqonayaa aan madoobayn macna رواه حوري الخمسة شنتي باوريسي وصححه وحصحيح الترمذي وحديث صحيح marka katamka iyo xinnaha iyo adiga fahmo lagama wado geedahani bixaddi daatihima iyaga la fahaantooda wax xugum oo ku xidhan ma jiro ee xugumku wuxuu ku xidhan yahay midabka saas macna hadii maadooyin kale la isticmaalo bedelkooda laakiin midabkii oo kale leh xugumkooda ay la mid sidoo kale tooy macna waana sida hadda jirto Soomaalidu waayahan dambe waxa laga ganacsadaayo la keenay waxay yiraahdaan xinnaha madow xinnaha madow sheekh ma la marsan kara xinnaha madow waa sawaadkan hadda ka soo hadalay waa sawaadkii doodiisii culimadu waxay ka qabaan aan ka soo hadlaynay kaas baa laga wadaaye xinna xukunkiisa ma qaadanayo xinnaha waxa la yiraahdaa midkan muxuu ahaay jaalaha casba la yiraahdaa macna waxaanu jeedaa kan jaalaha ayaa la yiraahdaa maxana xinna midabkaas la yiraahdaa ama geedka ha ka yimaado ama meel kale ha ka yimaado وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسولك وحوري ان اليهود يهود والنصارى النصارى لا يسبغون مبدلان مدبك او مرنجيان تمها مرنجيان فخالفوهم خلافا رواه حوري الجماعه جماعه باورس وعقدسي حديث كاسي تمها مدبكودا ان لا بدلاي inay ku jirto mukhalafatu al-yahud wan-nasara asmaana in la daayana muwaafaqa ku jirta xadiidkaas ay dilishadeen culimada qaar kood oo qaba taqyiirka in cirada la bedelaay waa waajib ilaahay qaarna waxay yiraahdeen inay waajib tahay waa riwaaya can ahmed jumhuurtu waxay qabaan in la bedelaay laazim ma aha waa sunno taas macna marka xadiidkani wuxuu xoojinayaa ظاهركيسو رأي إمام أحمد قبا إنه واجبه ساسو معنا
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري مرة ومري على النبي مرة وحا صومري على النبي نبي كركي صلى الله عليه وسلم رجل نبا صومري نينكاسو قد خضب حديث كاسو حديث قد خضب نينكاسو علامي بالحناء حنك علانتي فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن محا وناك بدنيسية والله يا بهذا كان ما أحسن ألا وناك بدنا هذا كان بمعنى يعني وحويا حنا كرك أمرس فمر وحا صومر رجل آخر ننكله وقد خضب علامي بالحناء والكتم كعلام لبدي سقود دري فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان أي أحسنك ونكسن من هذا كان كي هره حنها كليها أنا له كان دم بعدامه وحوجا حنها يكتم كسقود دري فمر وحا صومر آخر متصدحات وحال قد خضب علامي بالصفرة شالء كعلامي marka waxinii waa ka yar badalay faqala markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hada kani ahsanu wa ka wanaagsan yahay min hada kan kulli dhamaanti labadii horeba kana ka sifiican طيب رواه وري ابو داوود ووري ابن ماجه واسي ضعيف ادون نبد قال له ورونا لها لكن حديثه هو ضعيف اساس معنا ما سقنا طيب وعن ابي الرمثه قال وحوري ابو الرمثه التيمي صحابي واحد طيب النبي صلى الله عليه وسلم بو يمد سو ابي لا سعد markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aabihi buu la hadlay wuxuu ku yiri ma hada minka bu kani xagaaga muxuu ku yahay buu maxaa suti markaas wuxuu yiri ibni waa wiilkay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam amma ibnuka la tajni alayhi wala yajni alayka hadiiskaas ninkii ku yimid waa wiilkaaga dambigiisa qaadimaysid asaguna dambigaaga qaadimaayo la taziru waziratun wizra ukhra يعني ويس دالين دنبي لا يسوق ما قبته طيب حديث كاس نينكو كيميدوا ابي الرمثه وحول وعمير عن ابي الرمثه قال وحول كان النبي وحو صلى الله عليه وسلم يخضب مد علامه بالحناء حنها اي والكتم ايو كعلامج وكان وحوها شعره تنتيسو يبلغ مد غاده كتفيه لبديس كربود او منكبيه واسكو دوي يعني timaha nabigu sallallahu alayhi wasallam way laalaadeeno ilaa waxay gaadhayeen tunka ama garbahay gaadheen ama tunka hoos bay u dhacayeen macna rawaha wariya ahmad baa wariyay sanadkiisu waa dhaif nin la yiraahdo dhahaak ibn hamza ku jira oo dhaif wa fi lafdhi kala waxa ku sugan oo li ahmad u sugnaaday iyo wan nasaa'i iyo abi daawud wuxuu yiri ataytu nabiyya wa isla hadithkii hore laakiin kan dambe sanadka dambe waa xoog badan doona كافر ضعيف وفي لفظ كرؤ لي أحمد أسقنادي والنسائي وأبي داود لفظك وحا كسو أروري إنو أبي الرمث يري أتيت النبي كانوا يمن صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي آباه لتشرنكيس والحال له أسقنادي والحال له لمة آباه أنا الله سعود بها النبي قويم والحال له النبي أسقناتي لمة هلبو بها هلبدانا ay ku sugan tahay radacun daroobid oo min hinna'in hinna'a radaca wuxuu yiri ar-rad'u bil 'ayn al-muhmala 'ayn aan dhibic lahayn la akhriyo ay latkhun wa daroobid marmarin wa marka limadana waxa la yiraahdaa waanu tagi doonaa timaha way sii dayn jireen naga hadda Soomaalida hadana dumarka baa timaha sii daysay لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمها وسيدة سنجر صحابتنا وسيدة سنجر تمها مركل السيدة أيوه مر وحل إلى هذا وفرة مرنا وحل إلى هذا لمة مرنا وحل نقطة جمة صدح ضباء واتموه مركل إلا لا سمان وماذا حيك الله لا سمان كل بمشي تشوجان بيمج عليه تاسو معنا وفرده وحل إلى هذا مركل دجاها قارن مركل وحير دجاها دافان وحل إلى هذا لمة إلى هذا مركل يعني waxay reedaga hoos weera dhaafaan markay dhaafaan oo gaadhaan garbaha ay gaadhaanna jumma leeyahay saas macna marka limma ulahan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam walahu limma ayaanu imid isagoo ay uu nabigu leeyahay limma halaba uu leeyahay iyo tima siidaysan biha limadaasoo ay ku sugan yahay radacun daroobid iyo marmarin oo min hinna la marmariyo lagu daroobay طيب يقال وحل إلى هذا به ردع من دم أو زعفران
ردع يعني dharoobid oo ama dhiig ka yimid ama zacfaraan ka yimid ama xinna ka yimid baa la yiraahdaa saas macna wuxuu ku fasiray bimaana kelimada radac ayuu fasiray markii timaha wax la mariyo ama dhiig la mariyo ama zacfaraan la mariyo ama xinna lagu dharoobo ayaa la yiraahdaa dharoobida iyo marintaas ayaa wax la yiraahdaa radac marka timaha nabiga sallallahu alayhi wasallam ayay marsanid bil macna waxa halka xadiidkaasi wax xadiis sugan qaybta dambe ama lafdiga dambe ee Ahmad iyo Nasa'i iyo Abu Daawud ay soo saareen ayuu xadiidku saxiix ku yahay bisanadin saxiix ku yimid wuxuuna tilmaamayaa in nabiga sallallahu alayhi wasallam timihiisu ay badalnaayeen oo nabigu sallallahu alayhi wasallam xinna marin jiray ka tamarin jiray waa kan soo marnay marka intimaha la badalay oo yaani xinna lagu badalo ama ka tamba loogu daray yaani wax weeyaan ayay ahadiistaasi tilmaamaysaa waana sina sunnada cala aqal ee loo badan yahay macna hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam